يا دولة الصومالية لا شقية سيدا عاي ربطو إنا ولا شقيسان نكون رياضة إذين شيء ميسي ماذا هردنا حان رياضنا دايبل دنتادو وادريالك دولة دادا اللو دي فنجاك وموقضة وروان نبضي النلول وريا تاغير وركيز ورحاوتك قرط نبضي النلول أرياد النبضي النلول قفر ربين ما جرحا وحال قفليه اللو قدقا هورتا ورطان تباليك وقرم مفضوهينا تو إلهي شيء كويتي فضوهينا ورمان تقولي بارلمان كوا شيري شركينا وفرمي وايي بقولي اللبعتنا تميدا الليلي بقولي عفرتنا نبلت كيس كتشوغان ايون كحاضرين ماشاس انت اسوتي من لفتر كودو كوح كلمانا يا هايينو ادينكو كلا مدوحو يري رئيس الوساروه xubnaha uu wasiirada ka dhigto xildhibaanada ha ka qaado xilalka wasiirnimada mid kalena wuxuu yiri maxkamad gaara oo xildhibaanada lagu dacweeyo waa in la sameeyaa gudoomiyaha baarlamaanka aad ogtiin sida loogu kalsoonaana wuxuu yiri xildhibaanada shacabkii soo doortay aan ku dacweynayna wariyatan oo kala arkay madad lagu dacweeyo soo doortay jira dadka lacag doortay war waxaan maqli jiray allah ayo nin soo dhoofay oo lacag u soo dhoofay waxba uusan lacag dhoofine yaa isaga dhoof aryaadaha igaarka iyo gabarta ayaan tambuuqooru taagnayo adeerkoor la gubay NGO aaba laga dhigtay war xildhibaanaha inay feel galeen isku soo sawray warkaan iga dhax bacruga jeega dhogoreyda xalay igaarka iyo gabarta iyo xildhibaano tiro badan meel la isugu keenay asaa la yiri lamaanihi qarniga uga waxaan la yaabana gabarta habarteer gacan ku dhiiglaha ku eedaysan tahay xiran tahay iyo igaarkan adeerkiis la gubay in la yiraaho lamaanaha qarniga wayga dhaadhici weyday inta farxadu ka soo galay waa calool xumo kale yahay may dheega jiray qayloodi weerto laga qeeranka jiray dheega jiri marka dadka garaabado hay war idinkaan fahmine lamaanaha qarniga waayihiin waana lamaanihii murugada qarniga wax ma ogidina sheekadu waa faashiyo war ayaantan muqdisho war farxad la kama maqale maanta war farxad laha idin sida war muqdisho xageed balaayada u aragtayniyo baas abuuriyo war dhageyso warka hayaga dhax galin hooyo 8 caruur dhashay oo 8 daba agoonnimo ku korisay ayaa jaamacad ka qalin jabisay maanta waa agoon lay aqoon baratay ee baago waa dadaashay war dawladda iyo shirkadaha waaweyn oo dalka ka jira waxa ku waajiba taasoo kale inay lacag siiyaan iyo shaqo oo waxa ay baratay lagu tixgeliyo ummadda ugu shaqayso wuxuu yiri ilaahow bakhshish kama rabay haygu gelin baadi xabad yeesan shaqo siinina la faheeraha la nabad geliyo war hooyadii jaamacadda dhiganaysa meesha lagu dilay waxay ahayd baaruba xaq daraana lagu dilay ayadaba ilmay korsanaysay qalinkii dhiigi ayayna saddex geliyeen haye xaan hadda idin lahaay war agoon lay ma ahaynin waxay ahayd gabar 9 jir baska iskuulkana lagu dhacdilay warnamiyow abdiweli gaasa hadali may aray hadalkii maalin dhawayti ana ka hadali orerka wafar galbeed dibsideen raali gelin ka biye wa ari muga raali gelinti ma ka qaadateen he may ka qaadada waayaan hadalkii usari niman baydhawaha ka baxeen buurha ka baxeen diinsoorha ka baxeen da asweelan man hukumayaan intii usari ya hadana may leeyahay hadalka sida loo qaatay saas ma ahayn marka inoo marna inkira inoo marna hadalka saas ma hayna ara raali gelin ka biye marna ma ku weelanoona muga abdiweligaas idinku xaad ka tari kartaan haddaad xogxogataan wariya meelo business dhanka ka gadaanay hariirka anjaraane wal ganacsi dhanka ka luguurana idinku meesha ma waxaad u tagteen in abdiweligaas xaafadiisa ku xukuntaan war doorashadii koonfur galbeed baa soo dhawo campaign baa laga dhiganayaa sheekadan meeqa kaamaa laga furaha la yiri warnimayaha idinka war ma haysaane maalintii labaad ayuu muqdisho ka socdaa shirka dib u heshiisiinta dadka degan gobolka banaadir waxaana furay wasiirka arrimaha gudaha qarafan waxa uu yiraahday si magaaladu nabad u hesho gacanta waa in la isgeliyaa war dib u heshiisiin sideedaba haddaad maqashaan waa mashruuc lagu shaqaysto warniyo Soomaali laba ma ka dhamaad dib u heshiisiin cusub dastuurka qabiya labaas laga muuy dib u heshiisiin haddaad maqashaan siyaasi dan le iyo oday duub weyn awad wata war baadiyow may baaray wala dadka iska darawba siyaasiyiintu war dib u heshiisiinta dadka isku dirayso war shir dib u heshiisiin hadaad aragtid boor hayad leedahay baa gadaalka ka dhagan warnimada war ma haysaane gudoomiyaha hore ee maamulka gobolka banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale wuxuu yiri muqdisho beelo ku dagaalsan ma jiraan ayaan lagu marmarsan dib u heshiisiin dadka
hala maamulo maqaamkeedina hala soo celiyo ammaankeedana hala sugo war anuu madaalo waa la qabaa waa yeelkii dhalay ubadku waa warasadiisii wadnaha walaayada u sida waaxyahoo idil muqdishowna waddankoo dhan bay waalidkiis tahay una reer koonfur galbeed hobunanu warkaas qaadacni yaa hirshabeelle maad awal wax ku darsata adugu war galmudug muqdisho lagu heshiisiinaya la dhahayay ma la keenay war shirkii new york la rari war shirka new york waxaa ka qayb gashay gabadha ra'iisul wasaaraha ka ah new zealand mar dhowey umul kala soo baxdo ayadoo canugii xambaarsan bay tagtaa leed kuweennana hadday shaqo yar helaanoo maalmaa ilmahooda waa ergaan ama waa tuuraan adiga ma haddeeraad keentay ra'iisul wasaaraha umula xeeyu umuli waysa iyadoo cunugeera ximbaarsanayba ka qudbaysa qaraamada madoobay war isfahantu iyadoo umul hadday meeshii timiday birti madoobeed gacanta ma ku wadatay cunuga yarne malmal gacanta ma ugu xirnaay war islaantu canuga ay wadatay gabar uu ahaa waxaana loo aqoonsaday qofkii ugu daada yaraaye ee ka qayb gala shirka golaha guud ee qaramada midoobay war gabadha iyo wiilku waa iscaashaqeen war ma haysaane dulmiyaana adeerkood loo dilo loo gubay war magaaladan muqdisho dadka deganu waa heshiis bilaash baa dib u heshiisiin mashruuc looga dhiganaya war haddii ay heshiis yihiin maalin kasta may fiirsan lahaayeen qof dhexdoor ah oo lagu dilaayo war nimanta heshiisa laakiin saaqaas ay gelinin iyo gordaayan war dadka cabsiyaa dul saaran oo waabsan yihiin cabsidaa laga dulqaado ayagiyo waxay ka cabsanayaan baan la kala aqoon sidee looga dulqaadaa war dadka damiirka ka dhintay dameeraha ka dhinta naga tag dameeraha naga laynina war muqdisho maxaa ka rabtaan guddoomiye horaa beled weynaa yidhi lacagaa iga maqan xil la dhiibi maaye maxaad muqdisho ku soo celcelaysaan maanta dhan waraa dulmi iyo nacnacad meesha isugu keentiini dadka duruufa haysan nololeed war uninini daruuf bahay beero ma faladaanamay war dadka dilka ha laga daaya ee ka beeraha falanaya war horaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin oo la dili waayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye war dadkuba waa qof la dilay oo dhintay iyo qofkii wax dilay ayaa la dilayaa maanaad i dili kartaa mugga maxaa dili waaya dadka meeqa wanaagsan qandafil daran qaade